Welcome to Engineer Ali channel. Subscribe to my channel, thanks. Please follow to get more update. Wakhtigu ma sugo qofna. Ilbiriqsi kasta oo dhaafa waa qayb ka mid ah noloshaada oo aan dib u soo laaban doonin. Bal isweydii hal su'aal. Haddii maanta laguu sheego in hal sano oo keliya ay kuu hadhay si aad u gaarto riyadaada, ma sidan ayaad wakhtigaaga u isticmaali lahayd? Maya. Waxaad joojin lahayd dib u dhigista. Waxaad joojin lahayd marmarsiyada. Waxaad bilaabi lahayd ficil. Laakiin maxaad u sugaysaa ilaa beri? Maanta waa maalinta ugu muhiimsan noloshaada. Dad badan waxay u malaynayaan in lacagtu tahay hantida ugu weyn ee qofku leeyahay. Laakiin taasi run ma aha. Hantida ugu weyn waa wakhtiga. Lacagta waa la kasban karaa. Ganacsiga dib ayaa loo dhisi karaa. Wax kasta oo lumay waa la heli karaa. Laakiin hal daqiiqo oo tagtay dib dambe uma soo noqon doonto. Qof kasta oo guulaystay wuxuu fahmay hal sir. Wakhtiga si xikmad leh u isticmaal. Ha ku lumin saacado badan wax aan noloshaada waxba ku kordhinayn. Maalin kasta oo aad dib u dhigto riyadaada, qof kale ayaa ka shaqaynaya riyadiisa. Ha noqon qof sugaya maalin quman. Bilow maanta. Bilow hadda. Guushu waxay ka bilaabataa maskaxda. Haddii aad subax kasta ku tiraahdo naftaada, ma awoodo. Maskaxdaadu waxay kuu soo bandhigaysaa boqolaal sababood oo aad u fashilmi karto. Laakiin haddii aad tiraahdo, waan awoodaa. Waan baran karaa. Waan guulaysan karaa. Maskaxdaadu waxay bilaabaysaa inay raadiso waddooyin cusub. Noloshaada ma beddeli kartid adigoon beddelin fikirkaaga. Fikir kasta oo wanaagsan wuxuu dhalinayaa ficil wanaagsan. Ficil kasta oo wanaagsan wuxuu abuuraa caado. Caado kastana waxay dhistaa mustaqbalkaaga. Ha isbarbar dhigin dadka kale. Waxaa laga yaabaa in qof uu maanta kaa horeeyo. Laakiin taasi macnaheedu maaha inuusan beri kaa dambayn karin. Safarkaaga waa kuu gaar. Xawaarahaagana waa kuu gaar. Waxa muhiimka ah waa inaadan istaagin. Naftaada jeclow. Naftaada rumee. Qofna kuma rumaysan doono haddii adigu aadan marka hore is-rumaysan. Mar kasta oo aad muraayadda iska eegto, xusuusnow. Waxaad eegaysaa qof awood u leh inuu beddelo noloshiisa. Caafimaadkaagu waa hantida ugu weyn ee aad leedahay. Maxay lacagtu kuu taraysaa haddii jidhkaagu daalan yahay? Maxay guushu kuu taraysaa haddii maskaxdaadu aysan degganayn? Jimicsi samee. Soco. Orod. Cab biyo badan. Hurdo kugu filan seexo. Daryeel jidhkaaga. Sababtoo ah waa meesha keliya ee aad ku noolaan doonto inta noloshaadu socoto. Maskaxdaadana quudi. Akhri buugaag. Dhegayso dadka aqoonta leh. Baro wax cusub maalin kasta. Hal fikrad oo cusub waxay beddeli kartaa noloshaada oo dhan. Dadka aad la socotana si taxaddar leh u dooro. Haddii aad la joogto dad caajis ah, caajis ayaad baranaysaa. Haddii aad la joogto dad himilo leh, adiguna himilo ayaad yeelanaysaa. Saaxiibadaadu waxay saamayn ku leeyihiin mustaqbalkaaga. Dooro kuwa ku dhiirigeliya inaad kor u kacdo. Kadib, baro hal xirfad. Hal xirfad oo lacag lagu kasbado. Dunida maanta qofka leh xirfad mar walba wuxuu leeyahay fursad. Ha ka baqin inaad bilowdo adigoon wax badan aqoon. Qof kasta oo maanta khabiir ah, maalin ayuu bilow ahaa. Marka hore wax baro. Kadib lacag samee. Maalgashiga ugu weyn waa maalgashiga naftaada. Maalin kasta oo aad wax barato, waxaad noqonaysaa qof ka xoog badan kii shalay. Ugu dambayn, ha sugin dhiirigelin. Ha sugin fursad. Adiga ayaa abuuraya fursaddaada. Go'aanka aad maanta qaadato wuxuu go'aamin doonaa halka aad taagnaan doonto 5 sano kadib. Marka muuqaalkan uu dhammaado, ha sii wadin daawashada muuqaal kale. Qor yoolalkaaga. Samee tallaabada ugu horraysa. Xitaa haddii ay yar tahay. Sababtoo ah mustaqbalkaaga waxaa dhisaya waxaad maanta samayso ee ma aha waxaad beri qorshaynayso. Wakhtigaagu waa dahab. Ha khasaarin.
Guushaadu waxay bilaabmaysaa maanta.